autism bal nooqex muxuu yahay autism cudurka autismka waxa weeyaan waa cudur waxaa la dhahaa neurodevelopmental disorder oo ah cudur ilmaha ama dadka badankood markay ilmo yihiin lagu ogaanayo markaana la soconaya qofka oo ilaa intuu ka weynaanayo intuu nool yahay badankiisa noloshiisa u saameynayo weeye cudurku laba calaamad baa tiir u ah midka koowaad waxa weeyaan in ilmihii xagga xiriirka bulshada in ilmihii ay ku yar tahay ama ay ka maqan tahay tiirka labaadna waxa weeyaan ilmihii calaamado soo laalaabta iyo waxyaalo gaar ah oo ay aad xiiso u qabaan lagu arko waxaad noo sheegtay cabdiraxiim waxyaabo kale oo autismka ka agdhow oo lagu qaldo waxaa ka mid ah in waxay dhahaan speech delay oo kale in ilmihii hadalkii uu ka yara dib dhaco waxaa ka mid ah waxaanay dhahaan ADHD waxaan filayaa inay waxyaabo badan oo dadyow badan ay aaminsan yihiin waxa sababa cudurkan ay jiraan bal nala wadaag cabdiraxiim waxaa ka mid ah waxaanay dhahaan genetics waxay leeyihiin cudurkanu hereditability badan buu leeyahay waxyaalo la iska dhaxlo muxuu ahaa da'da waalidka oo kale haddii hooyadii ay maaragtay da'deedu ay korayso laakiin labada qof hadday ehel isku dhow yihiin miyay kordhisaa miyay yaraysaa mise waxay kordhinaysaa qaybtan geneticskay soo hosgelaysaa oo maadaama labadii qof ay geneska iska dhaxlayaan ay isu dhow yihiin waxay u badan tahay in markaa ay riskigoodu aad u sii kordho cudurkan miyuu soo kordhay oo dadka ku dhacayaa batay mise qalabkii iyo teknolojiyadii iyo dadkii fahamkoodii baa kordhay oo dadyo badan baa lagu sheegaa Dr. Abdirahim Rashid kusoo dhawow Doctors and Poets aad baan u faraxsan inaad maanta nagala soo qayb gashid programkan oon weliba ku fiirin doono topic aad dad badan u xiiseynayaan dad badanna ay jeclaan lahayn wax badan ka ogaadaan Dr. Abdirahim muddo 10 sano hadda ka badan hadaynan ku dheeroweyn ka badan baan isnaqaanay waa nin reer Indiana si deganaan jirnay jaamacadda waxbarashadiisii xagga medical schoolka iyo qaybaha undergraduate-ka waxaa kasoo dhameeyey haddana ah internal medicine hospitalist ka ah magaalada Columbus Ohio oo uu asaga noo yara faahfaahin doono marka barnaamijka maanta ka hadli doonana wuxuu yahay cudurkan baryahan weliba sanadihii u dambeeyay kusoo badanayay Soomaalida ee loo yaqaano autismka ama mangaar sida kuwa dad isxilqaamay oo isku dayay inay magac u bixiyaan af Soomaali ah ay kusoo gabagabeeyeen inuu yahay magaca mangaar marka Cabdiraxiim soo dhawow intaanan u gelin cudurkaas iyo wuxuu yahay iyo bal wixii aad nagala wadaagi karto wax yar adiga noo taabo qofka tahay waxaad maanta qabatid iyo wixii markii horeeyay kugu dhaliyay ama markii aad bilowday inaad cudurkan bal research ku samaysid oo daba gashay بسم الله ني waxaad aan ku dari mahayo intii muhiimka ah ka dhawaajiyay saadaxda magacayga waxa la dhahaa Cabdiraxiim Rashid kaliya waxa igu dhaliyay ku dari lahaa waxa weeyaan intaan ku jiray shahaadada hoose markaan diyaarinayay muddo 4 sanada ah ayaa waxa jira wax la dhaho capstone project oo ardaydu markaa diyaariyaan marka waqtigaas baa waxaan wax ka qoray xiriirka u dhaxeeya vitamin D deficiency oo vitamin D in hooyada inta ilmaha uurka ku wado inuu hooseeyo iyo inay hadhow ilmo maaragtay autism qaba inay dhasho marka waqtigaasaan adigu bilaabay in arrimahan autismka iyo waxa ku saabsan aan xiiso u yeesho wax ka akhriyo okay bal intaanan markaa su'aalaha kale oo badan oon ku hayaan oo gelin dadka cudurka marka uu horeeyay maqlayo ama uu ku cusub yahay ama aan qeexid run asal u haynin bal nooqex muxuu yahay autism maxaa consensuska ama waxa la isku raacsan yahay weliba culimada science-ka say u fahansan yihiin muxuu yahay cudurka cudurka autismka waxa weeyaan waa cudur waxaa la dhahaa neurodevelopmental disorder oo ah cudur ilmaha ama dadka badankood markay ilmo yihiin lagu ogaanayo markaana la soconaya qofka oo
ilaa intuu ka weynaanayo intuu nool yahay badankiisa si uu noloshiisa u saameynayo weeye. Marka waana cudur calaamado leh oo calaamado gaar ah oo cayiman oo la macneeyey oo markaa qofkii laga helayo weeye. Ma aha cudur intii qofka dhiigga laga baaro ama intii sawir laga qaado oo CT iyo X-ray iyo qalab caafimaad la saaro leeyahay waa laga helay. Ma aha, waa calaamado cayiman oo markaa haddii qofkii markii la qiimeeyo laga helo leeyahay cudurkaasaa qabtaa. Marka waa cudur noocaas oo kale weeye. waan u gudageli karnaa oo kale calaamadahan maaragtay iyo waqtiga labadaba marka la eegayo. Marka cudurku laba calaamad baa tiir u ah. midka koowaad waxa weeyaan in ilmihii xagga xiriirka bulshada iyo ma aragtay ishaarada iyo in qof wejigiisa uu akhriyo wax ka fahmo in ilmihii ay ku yar tahay ama ay ka maqan tahay. oo markaa inuu asxaab yeesho ama inuu ilmo da'diisa oo kale ay markaa kolba goor uu qof wax tusaale ahaan markii meelaha lagu ciyaarayo kale ilmuhu kolba ay maaragtay is bedelaan oo kale inay taa ay ku yar tahay ama ay ka maqan tahay. tiirka labaadna waxa weeyaan ilmihii calaamado soo laalaabta iyo ficilo soo laalaabta iyo waxyaalo gaar ah oo ay aad xiiso u qabaan lagu arko. marka labadaas tiir baa ya asaas u ah oo ilmihii laga helayaa. way jiraan waxyaalo kale oo markaa la socda oo kale in wixii markaa ay saameynayso ilmihii inta badanna waqtiga la ogaanayo ama waqtiga maxaa yeelay dalada isutaga dhakhaatiirta carruurta oo kale American Academy of Pediatrics oo kale waxay dhakhaatiirta ilmaha daaweeye ay soo jeediyaan in ilmaha laga baaro cudurkaas markay 18 bilood iyo ama ilaa 24 bilood inta u dhaxaysa baaritaan hordhac ah. marka carruurta marka laga helo oo screeninga lagu ogaado ayaa waxaa la sameeyaa in xirfadlayaal ku takhasusay ogaanshaha cudurka oo tababar dheeraad sameeyay oo extensive marka testing ku sameeya marka eega waxay noqon karaan maaragtay behavioral pediatrician bay noqon karaan oo ah maaragtay isla dhakhtarkii carruurta laakiin ku takhasusay cudurrada maaragtay ilmaha ku dhaca dabeecadaha iyo mental health-kooda. wuxuu noqon karaa child neurologist oo kale, wuxuu noqon karaa speech pathologist oo kale, wuxuu noqon karaa child psychologist. adigu xirfadlayaal kala duwan bay noqon karaan laakiin muhiimadda waxaa weeye in instrumentigii ama wixii ilmaha lagu qiimeynayay inay special certification ay kusoo sameeyeen. marka inta badanna waa wax maaragtay dhowr adigu ugu yaraan laba saac camal oo kale qaadanaysa weeyo marka ilmihii la eegayo. sida fiicanna waxaa weeyaan in xirfadlayaal kala duwan oo maaragtay in ilmihii ay qiimeeyaan iskuna raacaan ilmaha inuu cudurka qabo. okay marka haddii aan wax yar inaan si kale u dhaho aan isku dayo cunuga markuu 18 bilood ilaa 24 sano laba jir markuu yahay basically yaa laba calaamadood laga fiiriyo oo ugu waaweyn waxaa tiri in wada xiriirka dadka ama communicationka uu ku liito iyo in waxyaabo u gooni ah oo aad obsessed ugu yahay ama uu jecel yahay ama uu ku celceliso uu maxaa la dhihi jiray ay jiraan. cunuga markuu yar iyo 2 bilood jiro xakada 2 sano kala jiro maxay tahay communicationka xilligaas oo kale laga dareemayo laga rabo inuu la imaado oo haddii uu ku dhaco ama uu sidii la filay oo la imaan waayo la dhihi karo cudurkaan u qaba. tusaale ahaan waxaa ka mid ah in qofkii uu waxaanay dhahaan eye contact oo kale in ilmihii markii qof soo fiiriyo oo kale uu soo fiirinayo in markii uu bilaabi karo inuu wax gacanta ku taagtaago oo markaa isku dayiyo dadka waalidkood inuu madax soo jeediyo. marka khasab maaha hadal iyo inay noqoto laakiin waxyaalo marka uu calaamado ilmaha da'da jira oo kuwaas oo kale ka mid ah markii laga arko ayaa keenaysa in kuwii laga waayo laga yara shakiyo markii laga shakiyana loo gudbiyo dadka ku takhasusay baaritaanada oo loo tababaray in ilmaha markaa baaraan. marka inta badanna waxaa weeye in ilmihiiba waxaa loo geynayaa maaragtay qalabyada waxaantooygan la dhahay ku ciyaarayaan. waxaa la fiirinayaa in ilmihii uu sugayo inuu qaabku uu isticmaalayo inuu u ogolaan inuu qof kale la ciyaaro in maaragtay maxaa yeelay wuxuu ku sameynayo wax
wax maaragtay inuu wax dhisayo oo kale oo wax marka yani faham uu ka yara dambeeya ay ka muuqatay iyo in kale marka adigu waxyaalo noocaas oo kale ay eegaan marka hadduu cunuga iska maahsan yahay oo kale uunan waxaan xiiso ku ahayn uunan qolka cusub la keenay iyo qalabkan cusub la keenay uunan interaction la sameynaynin ama uunan la falgalaynin waxay sii kordhinaysaa shakiga la qabay shakigaasay sii kordhinaysaa marka inta badan actually caruurta Mareykanka waxaa cudurka lagu ogaadaa markay 4 sano ilaa 5 sano inta u dhaxaysa ayaa inta badankood lagu ogaadaa laakiin screeningka bilowga waxaa lagu bilaabaa markay 2 sano meelaha jiraan marka 2 sano ka soo gudubno haddaan u gudubno 3 ilaa 5 sano maxaa weeye calaamadaha xilligaas oo kale sii kordhinayo ama sii cadaynayo inuu cunuga cudurkan autismka uu qabo waa saan kuu sheegay weeye marka haddii ilmihii la arko in tusaale ahaan in waxaa laga yaabaa waqtigaas oo kale markii la gaaro oo kale in ilmaha haddii magac loogu yeelo oo kale magacii haddii loogu yeerayo inuusan soo jeesanaynin oo kale in maaragtay haddii caruur da'diisa oo kale waxay dhahaan sharing oo kale in ilmihii qofkii la wadaago ama kolba qof uu maaragtay ay isbedelaan muxuu ahaa markay wax ku ciyaarayaan oo kale ama waxaa laga yaabaa in ilmihii uu iskii intuu gees u fadhiisto in hal wax uu ku ciyaaro ama hal wax uu ku celiyo ama hal bombalo uu si kulba u aadiyo marka waxyaalo noocaas oo kale keenaya inta badanna dee kulligan caruur wada ag joognay markaad eegto waad garan kartaa ilmaha ka duwan caruurta kale adoon maaragtay waxba caafimaad iyo baaritaan iyo waxba aan soo marin marka wax yar oo maxaa la dhihi jiray oo dad kale ka duwan yahay loo fiirsado in isha lagu hayo ma ahana waxaad leedahay waa wax qof kasta u caddaan karo oo caruurta kale cunuga la mid ma aha waxa way u caddaanaysaa adigu dabcan horta cudurku uu kala heerar kala maaragtay waxaa jirta kuwa maxaa yeelay bay dhahaan waa severity levelkoodu kuwa waxaa jira maaragtay sii kala daran marka haddii uu fudud yahay oo kale hadduu yahay waxay dhahaan mild autism oo kale waxaa suurtagal ah actually qofku inaan la ogaanin ilaa inta ay markay weynaadaan oo kale markii high schoolka ay kala gaaraan ama markay bilaabaan inay relationship oo kale inay yeeshaan oo waxaa laga yaabaa in ilmihii inuu ku fiican yahay iskuulkii waxbarashadii laakiin la tacaamulka bulshada iyo yeelashada saaxiibo iyo waxyaalo noocaas oo kale marka autismka laftigiisu ma aha wax hal nooc wada ah waxaa jira kuwo maaragtay cudurku aad ugu daran yahay oo ilmihii markaa laga yaabo inuu xataa naftiisa khatar ku yahay oo u baahan in maaragtay 24 hours indhaha lagu hayo kuwa dhexdhexaada iyo kuwa maaragtay saa hadda sheegay oo kale mild ah oo yani social skillskii uu ka yara maqan yahay waxaad noo sheegtay cabdiraxiim waxyaabo kale oo autismka ka agdhow oo lagu qaldo cudurkan hadduu jiro iyo sida wax ayaga ee loo kala saari karo marka waxyaalaha intooda badan maaragtay laga maarmaanaya in la hubiyo inaysan ahayn waxaa ka mid ah in waxay dhahaan speech delay oo kale in ilmihii hadalkii uu ka yara dib dhaco marka taana waxaa lagu ogaan karaa inaysan asaga cudurkii ahayn maxaa yeelay in ilmihii uu ishaaradii ama waxay dhahaan non-verbal communication in uu fahmayo oo hadalka inkastoo uu ka dambeeyo laakiin haddana markii wax loo tilmaamo oo tilmaantii uu garanayo oo kale marka inta badanna waxaa la dhahaa wiilasha oo kale way ka yara dib dhacaan gabdhaha oo kale marka inaan lagu degdegin oo haddii ilmihii faham ay ka muuqato oo markii wax loo tilmaamayo ama markii wax loo sheegayo kale ay maqlayaan inay taa noqon karto waxaa ka mid ah waxaanay dhahaan ADHD oo asagana ah cudur inta badan caruurta markay yaryihiin lagu ogaado runtiina waxa weeyaan waa fudayd iyo maxaa yeelay qofkii inuu attention ilmihii uusan siinaynin wuxuusan rabin taana waxaa lagu kala saari karaa cudurka in ilmihii xagga social skillskii ay joogaan oo ilmihii kale u caadi oo la ciyaarayo markay bannaanka joogaan oo kale
oo maaragtay waxaanay dhahaan complex child play oo kale in ilmihii maaragtay tiimam intii loo kala baxo saa caadi u ciyaarayo laakiin markay for example xisaabtii ay noqoto oo kale oo uusan rabin oo uusan xiise u haynin inuu xisaabtii ku dhacayo oo kale maadaama uusan wax attention uusan siinaynin marka adigu way badan yihiin waxaa kaloo dhici kartaa wax la dhaho anxiety ama selective mutism oo ah in ilmihii uu maaragtay cabsi uu qabo keenaysa in iskuulkii oo kale markuu aado inuusan hadlaynin laakiin markuu guriga joogo uu caadi u hadlayo waxaa kamid ah waxaana la dhaho intellectual disability oo ah in ilmihii garad muxuu ahaa fahamkiisii uu hooseeyo oo IQ-giisa uu low yahay laakiin socialskii caadi ay yihiin oo weli asxaab u yeelanayo oo caruurtii ula ciyaarayo oo waxyaalaha maaragtay noocaas oo kale laakiin galaashadii oo kale uu ku dhacayo maaragtay la arkayo in fahamkii iyo waxbarashadii uu ka dhowr maaragtay grade uu kadib dhacayo oo kale laakiin sida kale uu caadi yahay erey hadda kahor ismaashay waxa aan ka helay waxay ahayd kala saaridaas aad tiri cuduradan kale sida ADHD-ga iyo anxiety-ga iyo maxaa la yidhi intellectual disability-ga iyo waa software glitch laakiin autism-ka waa totally different maxaa la dhihi jira software ama operating system marka aad bay u kala duwan yihiin oo wax la isku qalbi karo maaha exactly ha marka inta badan cuduradan waxa lagu soo laalaabanaya markasta waxa weeye waa social skillskii taasaa inta badan the defining feature-ka ah in cuduradan kala duwan maaragtay caruurta marka lagu ogaanayo waxa weeyaan waa ilmahanu markii la eego asxaab ma yeelanayaa xiise ma u qabaa marka ilmaha kale ula ciyaarayo ciyaartii ma fahmaya hadday ahaato ciyaarahan caruurta ay ciyaaraan ama la kala dhuumanayo ama kubaddan la laadayo ama meelahan maaragtay maxaa yeelay maaragtay kubadahan laisku turturayo wax noocaas oo kale okay marka aan u gudubno maxaa la dhihi jiray waxa sabab cudurka waxaan filayaa inay waxyaabo badan oo dadyo badan ay aaminsan yihiin waxa sababa cudurkan ay jiraan laakiin badankood waxa cilmi baaris lagu sameeyey oo lasoo ogaaday inaynan ahayn marka annagoo ku horumarayno bal waxa uu science-ka iyo culummada science-ka ay ka dhexeen iyo waxa la hubo oo inta cilmi baaris lagu sameeyey lasoo ogaaday inuu sababo cudurkan bal nala wadaag cabdiraxiim waxyaabahaas wax kuwooda ugu waaweyn horta wax gaar ah oo cudurkan lagu ogaaday ilaa hadda ma jirto oo leeyahay waxaasaa keena qaabka ugu fudud ee loo fahmi karo cudurkan waxaa weeyaan waa adoo magaalo timaaday oo destinationkii meesha u socotay gaadhay markaana la isweydiinayo qaabkeed magaaladan u timaaday marka waad dareemi kartaa inta meel laga kala imaan karo qofa maaragtay meel hebel ka imaaday qofaa meel hebel ka imaaday qofaa meel hebel ka imaaday waxaan ka wadaa jid hebel soo maray qofbaa baawur ku imaaday qofbaa diyaarad ku imaaday marka intaasoo dhan maaragtay noocyadaas kala duwan laakiin way jiraan waxaanay dhahaan associations oo markay dadkii la baaro waxyaalo waxaa jira calaamado marka ay arkayaan oo soo laalaabta baaritaanadan kala duwan aan wada intaan eegayay iga hor imaaday marka waxyaalahan ay sheegaan waxaa ka mid ah waxaanay dhahaan genetics waxay leeyihiin cudurkanu heritability badan buu leeyahay waxyaalo la iska dhaxlo oo haddii tusaale ahaan laba mataana ay dhashaan in riskiga midka kale uu aad u koreeyo inuu markaa maxaa yeelay marka midka kale laga helo waxaa ka mid ah muxuu ahaa da'da waalidka oo kale haddii hooyadii ay maaragtay da'deedu ay koreyso sidoo kale aabuhu in riskigii cudurka ilmaha cudurka qaba inay dhashaan inay hay tahay waxaa ka mid ah dhowr wax oo saameynaya inta uu da'da ma hooyaday ku koobanta bas mise hooyada iyo aabaha labadooba da'dooda hadday aad u sareyso cudurka halistiisana waa kordhaysaa niyaho waa labadaba wey waa hooyada iyo aabaha labadaba sax okay waxaa ka mid ah maxaa yeelay
waxaan hadda vitamin D deficiency oo kale aan ka hadalnay iyo dhowr adugu arrimo oo kala duwan oo kulligood wada saameynaya uurka intay hooyo ilmaha uurka ku hayso. waxaa ka mid ah markii tusaale ahaan hadda haddii hooyada uurka ilmaha ku haysa ay infection ku dhacdo oo kale ilmaha wuu saameynaya. waxaa ka mid ah waxaan dhahaan premature birth, in ilmuhu isagoo waqtigii loogu talagalay inuu maaragtay 40 week ama at least 37 weeks aan dhamayn inuu ka soo hormaro. waxaa ka mid ah waxay dhahaan maternal stress oo kale, haddii hooyada maaragtay intay ilmaha uurka ku hayso stresskeedu waxaa yahay. waxaa ka mid ah essentially any medical condition oo saameynaysa hooyada inta ilmaha uurka ku hayso maaragtay uu saameyn karaa ilmahaas. oo baaritaanadan kala duwan ay sameeyeen waxay ku ogaanayaan in tusaale ahaan muxuu ahaa research laga sameeyey jaamacadda UCLA oo la eegayo muxuu ahaa waxay dhahaan maternal immune activation oo kale. waxay ku ogaadeen in haweenka dhala caruurta autismka qaba markii dhiigoodii dib ay u fiiriyeen inuu maaragtay laga helay dhowr waxa la dhahaa antibody oo ah protein markaas weeraraya maskaxda ilmaha markaa maaragtay koraya oo intii uurka ku jiray marka waxay sameeyeen hooyooyin uur qaba baa dhiig laga qaaday. markii hadhow ilmihii dhaleen waxaan ka wadaa markii hooyooyinkii ilmihii dhaleen ay weynaadeen oo lagu ogaaday cudurkii ayaa dib dhiiggii loo fiiriyey. dhiiggiina waxay dhiig meel ay ku kaydiyeen oo markaa frozen laga dhigay. marka waxay ka heleen in immune systemkooda uu maaragtay kor u kacay. immune systemkana waa unugyada jirka difaaca. waxay kaloo ka heleen specifically waxyaalo weeraraya protein muxuu ahaa qaybo maskaxda muxuu ahaa maskaxda ilmaha qaybo ka mid ah ayaa laga helay. marka to the point naagtii waxaan sameynaysay baaritaanada waday inay samaysay company ka baaraysa hooyada ilmo autism dhashay. markaana haddii hooyada ilmaha autismka dhasho haddii baaritaankaas laga helo waxyaalahan antibodieska ah with good certainty up to 90% waxay leedahay more than likely autismka ilmahaas waxaa keenay proteinka dhiigaaga laga helay ee antibodiga. antibodigana ma waxa difaaca jirka qofkan kusii jirayba mise waxa uurka ku dhaliyo hooyada markay uurka qaado yaa jirkiiba la dagaalayo cunugii oo weerarayo u malayo inuu wax jirka soo weerarayo. essentially theorygeeda ah oo maternal waxay u bixisay MAR autism oo ah maternal antibody related autism weeye. waxayna leedahay autismku wuxuu ka yimaaday antibodiga hooyadu ay samaysay oo markaa weeraray maskaxda ilmaha intii uurka ku jiray. waxaa kaloo jira ayagana baaritaano kala duwan oo hooyada haddii laga helo antibodigaas hooyada chancega cunuga ay dhasho inuu autism noqdo waxaa tiri 90%. adigu exactly statistics ma haya waxaa faa'iidadu baaritaankan ayadoo ay leedahay waxaa weeyaan already ilmihii haddii laga helay cudurkii hooyadana markii dhiiggii la baaray laga helay muxuu ahaa antibodigan in with good certainty I think we can pull up the numbers but waxay leedahay waxaa more than likely autismkaas waxaa keenay maternal antibodygaasaa keenay. ayaduna waxay qiyaasaysaa up to 25% ama afartii muxuu ahaa quarter maaragtay afartii ilmoodba mid autism qaba in loo tiirin karo noocaas oo mechanism noocaas oo kale ay ku imaan karaan. marka waxaad niri so far waxyaabahaas waxaa ka mid ah ageka oo hooyada iyo aabbaha midkoodba hadduu da' weyn yahay. waxaana wax yar inaad ka taabatid cudurka lack of vitamin D oo weliba aad xoogaa dib noogu celiso cilmibaaris adigaa samayso. waxaa tiri waxaa laga yaabaa dadyowga meesha cimilada kulusha kasoo guuro ee meelo qabow u guuro inuu cudur ku bataa laga yaabaa because of maxaa la dhihi lack of vitamin D. marka bal midkaas wax yar noo yara faahfaahi. niyahow I think waxay ahayd baan u malaynayaa I can't remember there was one study waxaan u malaynayaa inuu ahaa waddanka Denmark la eegayey
hooyooyinka Soomaalida ilmaha intay dhalaan markii ilmihii la ugu ogaaday autism dhiigooda dib loo fiiriyey in vitamin D-goodu uu low ahaa. Marka vitamin D-gu muhiimadiisu waxaa weeyaan waa hormone basically almost every single aspect of human development saameynaysa weeye. marka siiba wuxuu aad maaragtay u saameynaysaa dadka jirkooda uu madow yahay oo laga yaabo qoraxdan goboladan maaragtay galbeedka dhinaca maaragtay northern latitudeska jira ee qorax daciifa oo yar helaya in maadaama maqaarkaaga uu madow yahay the same kind of light sunlight-ka oo ku dhici lahaa qof cadaana isku si ooma helaysid vitamin D. Vitamin D-gan inta badan bini aadamku wuxuu ka helaa qoraxda jirka ku dhacaysa. صح. Marka that link is there, but it's in some of these studies waxay tusayaan markii ay fiiriyaan siba epidemiological studies in caruurta markay dhalmayaan oo kale oo markii la fiiriyo tirada numberka muxuu ahaa waqtiga ilmaha uurka ay ku jireen intooda badan waxay ku soo aadayaan xilliyada waqtiga qoraxdu ay yar tahay oo kale xilliga fallka oo kale around September October oo kale ilmo uur markaa qaaday maxaa ka wada hooyo waqtiga uur qaaday oo markaa samarka dhalanaya oo kale. Marka adigu marka muhiimaddu waxaa weeye un in exactly lama dhihi karo waxaasaa keena oo vitamin D-gaasaa keena oo de waxaa la heli kuwo vitamin D levelkooda uu caadi yahay laakiin associationkaas wuu jira. sababtoo saad awalba noo sheegtay sababo badan baa jiro oo vitamin D mid buu ka noqon karaa laakiin waxaa laga yaabaa hooyada vitamin D-giisa iyadoo vitamin D-geeda iyadoo uu levelkii la raba yahay inuu weli ay cunug autism dhasho sababtoo waxyaabaha faktarada kalood sheegtay baa laga yaabaa mid ka mid inuu tahay. Laakiin vitamin D-gan waxa ugu soo noqonaya xataa waxaa kaloo la sheegay badan oo madow weliba dadka immigrantska ah oon ku baraarugsanayn in hadday meel kuleyl kasoo guuraan oo meel qabow u guuraan inay u baahan yihiin supplement inay qaataan ama ay si kale ay isku dayaan inay vitamin D u helaan inuu maxaa la jiro common ku dhex yahay. waxaata marka cunuga hooyada hadday uur qaado xilli qabow lagu sii dhow yahay sida fallka oo kale September October oo kale hadhownu samarka dhasho oo caloosha cunuga intuu ku jiray ay ku soo aado xilligii qabowga ahayd ee qoraxdu yareed ahayd. cunugaas waxaa laga yaabaa inuu chansiga ah inuu autism noqdo uu ka badan yahay cunuga dhasho ama uu galo xilliga samarka. Marka observational studies-ko dib u eegaya waxay leeyihiin statistically significant findings baa jira oo tusaya in rate-ka autism-ka uu high ku yahay ilmaha waqtiga dhasha. siiba waxaan jeclahay inuu ahaa hal study oo kasoo baxay goboladan muxuu ahaa Scandinavian-ka midkood buu ahaan jeclahay inay actually ay fiiriyeen dhiigga hooyooyinka Soomaalida oo laga baaray vitamin D levelkooda oo markaa low u ah markii loo fiiriyo kuwa kale maaragtay ama cadaan ha ahaadaan ama qolo kale ha ahaadaan. Marka essentially waxaa la dhahaa waa neurohormone oo ah waa hormone maaragtay vitamin keliya maaha saameynaysa qaybo badan oo kala duwan siiba immune systemka maaragtay xiriir bay la leedahay maskaxda ilmaha koraya waxbay la leedahay. Marka waana wax aad u fudud oo haddii for example haddaad hooyo tahay oo kale ama haddaad nin tahay labadaba qofkii haddaad gobolada waqooyiga xankooda qabowga joogto aad qaadan karto oo markaa levelkaaga aad kor u qaadi karto. waa kaniini ama supplement over the counter oo dadka meesha doonaan ka helayaan. dhakhtarna ma baahnid inuu kuu qoro marka wax aad u fudud oo waxaa lagu gadaa CVS-ka iyo Walgreen Pharmacy-dan maaragtay lagu wada gadaa kulligood. Sax. Okay, marka bal waxay nooga taabataa ayadana sababo kale oo tiri waa la xiriiriyaa cudurkan wuxuu yahay stresska. iyo markay eegeen waxaa la ogaaday horta cudurkan inuu ku badan yahay qowmiyadaha muxuu ahaa wadamadan galbeedka oo kale dibudejin lagu sameeyo ama ha u imaadaan qaab maaragtay shaqo ama ha u imaadaan qaab muxuu ahaa migration oo kale. Markay eegaan markii loo barbardhigo markastana waxaa la isla barbardhigayaa
bulshada markaa aad ku dhex nooshahay iyo dadka kale markaa la soo degay. markay isbarbar dhigaan markasta waxaa la arkayay in dadkan maaragtay soo dhex degay ama ha ka imaadaan Africa oo kale ama ha ka imaadaan xataa Jamaica oo kale in autismku levelka maaragtay ama heerka uu ilmaha laga helay inuu ka koreeyo dadka native-ka meesha soo dhex degayaan. marka waxyaalaha ay u micneeyaan ama ay isdhahaan waa sababay u noqon kartaa waxaa ka mid ah in bulshooyinka noocaas oo kale ah oo meel kale ka imaado oo lasoo dhex dejiyo qolo kale in stress levelkooda uu ka koreeyo. stresskana waxaa laga wadaa maxaa yeelay inay markii dhiigooda la baaro oo kale waxaa jira wax la dhaho stress hormone oo sida cortisol oo kale. cortisolkaanana haddii dhiiggaaga uu high ku yahay tusaale ahaan hooyo oo kale in ay maskaxda ilmaha ay geli karto oo markaa ay saameyn karto oo waxaa laga yaabaa waxay dhahaan epigenetic modifications oo kale inay dhacaan oo maaragtay actual impact ay ku lahaadaan. marka stresska marka taasaa laga wadaa waa stress basically saameynaya hormoonada dhiigga ku jira oo and eventually markana saameynaya in muxuu ahaa immune systemkii wax ku saameeyaan ama maaragtay epigenetic modifications ay ku sameeyaan oo laga yaabo genes qaarkood in la damiyo qaarkoodna la shido iyo wax noocaas oo kale. Wow, okay. waxaan isku dayaa markaa inaan facekan ama waxyaabaha sababo cudurkan aan soo gabagabayno. waxyaabo saad noo sheegtayba oo waxyaabaha ayna dadka wax badan ka qaban karin sida dhaxalka oo kale qofka dee uu generic yahay wax weyn kama qaban karaan. hadduu immune response yahay waxaan malaynayaa laftarkeeda in wax laga qaban kara ay xadidan tahay. miyay jiraan hadda vitamin D waxbaa laga qaban karaa, stresska qofka intuu manage karin karo waxbaa laga qaban karaa, waxyaabo kale oo waalidiinta ay wax ka qaban karaan oo control leeyihiin oo yareyn karaan cunuga markuu uu qaaday uurka ku jiro miyay jiraan oo la xiriiriyo? way jiraan. horta waxaan dhaxalka sida looga fikir qaabka u fiican lagu fikir karo waxaa weeye waa run wixii qofkii xigtama bedeli kara laakiin haddana cudurku waa polygenetic bay dhahaan. ma aha wax hal gene oo khaldama iyo laba gene oo ma aha. wax ku dhow 2500 oo gene bay hadda marayaan oo leeyahay xiriir buu cudurkan la leeyahay. marka sida loo fahmi karo waxaa fiican inay loo arko wax inay tahay wax foundation ah. marka geneskii waa foundationkii ma sababayaan cudurkii, waa in waxyaalo kale ay isku soo aadaan in maaragtay qof cudurkii u nugul oo maaragtay dhaxal ahaan geneskii u nugula qaba in maaragtay laga yaabo in waalidkood vitamin D-gooda uu low yahay, in meel stress badan keenaysa inay ku dhex joogaan, in maaragtay marka waxyaalaha markaa isbiirbiirsaday ayaa markaa laga yaabaa in wixii markaa ay maaragtay qofkii ku keenaan inuu cudurka uu ku imaado. marka geneticska marka waxaa loo eegi karaa waa kind of like the base foundation oo kale oo markaa cudurkii u noqonaya wixii ku taagnaa. laakiin waxyaabaha kale haddii la yareeyo in kaligiis una sababin baa laga yaabaa. dabcan haddii waxyaalahan kale la sameeyo, haddii maaragtay qofkii uu ilaalinayo wuxuu cunayo oo kale, qof maaragtay caafimaadkiisa xooga saaraya, waxyaalahan cuduradan laga hortagay oo kale sida macaanka oo kale maaragtay is ilaalinaya oo kale. marka inta badanna qofku ka caafimaad fiican yahay unbay u badan tahay in maaragtay complicationskiisuna ay hadhow ay yaraadaan oo maaragtay outcome muxuu ahaa ka fiican kuwa kale ay la imaadaan. miyaa jirto wax kale oo lala xiriiriyo cudurkan sida labada qof ee waalidka ah xiriirkooda xagga dhalashada hadii la fiiriyo, qofka weightkiisa ama culayskiisa, waxyaabo kale oo jiro oo ayaan lala xiriiriyo miyaa jiro? I think the only qaabka ugu fudud ee taa ay soo hosgeli karto waxaan isleeyahay waa immune systemkaas. inta badan haddii maxay ahaday qofku uu
complications ay ku dhacaan markii ay ku jiraan markay ilmaha urkooda ku wadaan oo kale that's one way of maaragtay ku imaan karto maxaa yeelay issueska hadhow ilmaha saameynaya oo kale laakiin up to now all of these things maaragtay waxaan ka ahayn genetics oo kale the actual association risk ay raacinayaan wax saa u sii weyn maaha marka way adag tahay hal wax in la dhaho waxaasaa sabab u ah okay laakiin labada qof hadday ehel isku dhow yihiin miyay kordhisaa miyay yaraysaa mise waxay kordhinaysaa qaybtan geneticskay soo hosgelaysaa oo maadaama labadii qof ay geneska iska dhexlayaan ay isu dhow yihiin waxay u badan tahay in haddii waxyaalo badan oo markaa maaragtay hadday yihiin tusaale ahaan laba qof oo cudurkan reerahooda maaragtay ama geneskii maaragtay wata in markaa ay riskoodu aad u sii kordho tusaale ahaan haddaad ilmo dhasho ilmaadu haddaad dhasho autism inaad ilmo kala dhasho riskaagu wuu ka koreeyaa qof aan wax ilmo aan lahayn ama haddii ay jirto qof aa walaala tihiin oo cudurkii maaragtay ilmo maaragtay dhalay aad walaala tihiin oo qaraabo tihiin inaadna ilmo dhasho wuu ka koreeyaa qofna wax qaraabo aan lahayn oo ilmaha dhalay okay Dr. Abdiraxiim waqtigu noo hayay episode-kan intaas kusoo gabagabaynaynaa waa ka xunnahay laakiin episode labaadoo follow up aan samayn doonaa adinkana waxaan idin siin doonaa insha allah fursado aad su-aalihiina kusoo dirsataan si aan qaybta labaad ee waraysiga ugu darno marka doctor aad baad u mahadsan tahay waqtigaaga iyo weliba diyaar garowgaaga aad researchkan la soo wadaagtay episode-ka xigo insha allah dadkii iyo waxyaabihii aan ka hadlaynay waan tusin doonaa dadweynaha marka aad baad u mahadsantahay